ama ila talidan waxay ka socotaa wiil ama nin Soomaali ah wuxuuna leeyahay Sheekhuuna Alfaadil waxaan ahay laba xaasle oo mid waxaan uga soo tagay dhulkii hooyo iyo geeyigeeni hodanka ahaa ee Soomaaliya wuxuu leeyahay halkan ayaan gabar kale ku qabaa marka waxa ay leedahay war shaqo tagin Ilaahay baa rizqa bixiya halkan iska joog oo shaqo dhanba way iga hortaagan tahay ayuu leeyahay tii kale tan waxay leedahay warniyu nabil oo lacag noo soo diro waxna si waxaan u dirana ma hayo anigiyaaba calooshayda maaragtay la hayaa oo hubaaraqe ayay dumarku u bixiyeen ragga qaar maanta jira marka wuxuu leeyahay taladu way iga ciirsan tahay haddaan shaqo aadana middan ayaa wuxuu leeyahay aan farxad dareemayn haddii aan shaqadii aanan aadina taasina farxad ma dareemayso haddaan halkan shaqo bilaabana middan ayaa ay qaniinaysu leeyahay meel aan u dhaqaaqaan la ahay xaaladeeduna way murugsan tahay Sheekhuuna Alfaadil maxaad ugula talinaysaa ayuu ku leeyahay falyatafadal mashkuuran wa maajuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاشني وسؤال بيرتشلع لقول رادين أيوه أدر مسؤولية دان أدقى قاضي أدر مسؤولية دان أدقى قاضي إلهي أكتي سنة ولا ويدين إسلام باقوري إيواهي ستؤو هشقين الله مدبا لمتقانا العقل صادر محاسم إياه وحاسمين أدا يقان waxaad samaynayso waa wuxuu Ilaahay ku amray ninkii soo fariis laga waayo soo jiiftaa laga helaa soo joog qofka laga waayo soo jiiftaa laga helaa sooma adiga gabdho muslimaada dusha saartay oo yiri aniga nin aniga nin rag Ilaahay wuxuu yiri masna wa thulatha wa ruba' wa run adiga soo adigu shafka ma tuman labada dumar adiga laga doonayaa saad u wada dhaqi lahayd adiga laga doonayaa saad cadaalad ugu samayn lahayd adiga laga doonayaa sidii aad mid walba arsaaqadii alla kugu soo dhiibay iyo labiskii ay kugu lahayd iyo maxaliyada maskankii iyo guriga ay kugu lahayd iyo daawadii ay kugu lahayd iyo tacliintii ay kugu lahayd xuquuqdii ay gabadha kugu lahayd adeer adaa laga rabaa maxay tahay oohintu أول رجل ku guursatay away raganimadii aan laba dumar aad ku guursatay away waa maxay islaam baa laha shaqaynin iyo waa maxay see lagu dhigi karaa shaqaynin soo xuquuq lagama rabo soo ilaahay wax ka yani waa maxay fikirka noocana inuu nin yiraahdo islaamtii baa laha shaqaynin maya xuquuqda waa laga doonaya وإن اللبضة غير بأوشا قيسا هيه ترى شقين هديكو أيضا كبيل مياه أتي كلمة يكون بيه ويه هاي مدك لما نلغب بيران الرقع وأولي كرينو شقيستو ثاني كلمة دا واحد بدبل دنبنا إيجاسو قارين نشا قيسان كرا وعافيمات قبا oo nin rag ma qof dumar ah hoos fariisani war dumarka xooladu waa sun meeqa jeer baa idin sheegnay ha isku taabanina dumarka xoolahooda u daaya dumarka xoolahooda caanaha ka cabida u daaya ragga dumarka xoolahooda hadda ka hor su'aalihi halkan laga weydiiyey waxaa ka mid ahaa nin yidhi qof dumara waxay igu tiri boorsadaada uu soo qaado markaan soo qaatayna waxay leedahay sariirta markaad ku fadhiisanayso tartiib ugu fadhiiso way jabaysaa waad ogeydeen habeenkii wixii khayra iga baxay in xataa kursiga raali geliyey sariirta raali ah oo ku cili waad maqlayseen war dhurwaaba ka calaacanay xoolaha dumarka xaggaydan ka martay maamaadii hore ragga Soomaaliyeed midda kale adeer haweenaydan hadday ku dhahdo adeer fariiso ha shaqayn hadday ku dhahdo adeer ilmaha dhashay waxay ku arkayaan adigoo shaqaysanaynin biri ma shaqaysanayaan adiga ragow waa inaan inagu qudwo noqonnaa waa inaan maamul noqonnaa dad lagu dayda waa inaan noqonnaa waa inaan reeraha maamulnaa waa inaan carruurteenna shaqada barnaa markaan shaqaynay ilmahaygu wuu shaqayn markaan anigu wax qabanay ilmahay waxbuu qaban
markaan reerkayga caawinaya ilmaha nin wiilkuna wuxuu caawin doonaa xaaskiisa waa inaad adigu oo intaasoo arrimood oo aan sheegnay ay ku guda jiraan laakiin adigoo nin rag ah oo laba dumara qaba in maanta la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa fadhiisay ileedahay ha shaqaynin waxa weeyaan waa dayac wey xoolo waa dayac carruur waa dayac mustaqbal waa dayac xuquuq waa dayac adiga laftaada waa dullinimo adiga laftaada ah ha yeelin arrintaa shaqee oo ayadana biilsii shaqee oo tii kale biilsii shaqee oo tigirhkii aad tii kale ugu tegi lahayd shaqee si aad ugu tagto shaqee si ilmahaagu u arko inaad shaqaynayso berrina u shaqaysto shaqee si ilmahaaga aad waxbarashada ugu fiican u geyso shaqee si aad ilmahaaga yacni dhar midka ugu fiican ugu gado shaqee si aad ilmahaaga tigidhadii fasaxyada waddamada muslimiinta ah iyo dalkii hooyo si aad ilmahaaga u geyso shaqee si aad raggaa uga mid noqoto shaqee si aadan qofna u baryin shaqee si aadan qof dumar u hoos fadhiisanin kharashkeeda hadhowta laguu dhihin muxuu qabtaa kan gurigu iska fadhiyahay wabillahi tawfiiq